maayirada 23 degmo doorasho ama 20 maayir jooga iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan ka soo qaybgalay dhamaantiin assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh inta kadib aad baan idinku hambalyeynaya qabsoomida shirkan idin qabsoomay maanta oo shirkii afraad ee wax ku dooranayseen muddo imka dhowr iyo 10 sanadood ay jireen uu jiray ururkan algasar ama ururkan dawladaha hoose kolay inta uu jiray wax badan baa la kala faa'iiday ama wax badan baa la kala kororsaday inkastoo mar walba ay si maxay leeyahay isbedel imanaya maayirada oo qaar halkay joogan kuwa kale ka sii dhaqaajinayaan idinkana insha Allah waxaan rajaynayaa in maayiridina saa kala fadhiya intii badan waa cusub baa tiina waxa tiin maayirid doorasho gudub soo baxay kolay ina ka faa'iideysan doontaan sida wuxuu qabtaan iyo maxay leeyahay waxyaalaha laga faa'iido waa ogaan doontaan oo rag waayarga ku jira golaha oo kuwii hore ku jiray kuwan magaalada ku jira shuruucdiisana way eegan doontaan hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in wax soo kordhiyo oo aanu iska ahaanun ururkii dawladaha hoose laakiin inuu tadawur sameeyo oo wax horumar u gaadho oo uu gaadho degmooyinka yaryar kale dalku waxa weeyaan 101 degmo 101 ka degmaba inay noqotaan madax oo gaarsiisaan gobol waliba ama maayir waliba degmo haystaaba degmooyinkiisa yaryar hoos yimaadeen uu gaarsiiyo maxay ahayd faa'iidada ka soo baxda ururkan ayaa loo baahan yahay oo intiina ku koobnaanin doorashadiina la xirjinay mid khayr laga soo baxdo oo hoggaan fiican doorataan idinka wax horoos ah u doorajitana warraba oo garanaysan oo door doontaan waxa kale oo ka yar faa'iideysanaya wadankii waxa ka jira abaaro baan baa ka jira gobolladan bariga oo qaylo dhaan badan baa ka jirta oo ay xukuumaduna u hawl gashay gudina madaxweynuhu sameeyay kolley gobollada qaar ka mid ah maayiradu way joogaan intiina kale aan abaartu soo gaadhin ama dawlad hoos ahaanba waxaan jecelahay in waxa ka qayb qaadanaysan iyo sagu diyaar garoobayay in qudhinu shirkana iska weydiisaan oo arrinka qudhiisa ku darsataan ajantaha tana waan jeclaan lahaa oo taan ka qayb qaataan tana waan jeclaan lahaa hadii la yiraahdo wax gelisaan hawshiinan ina wax u qoondeysaan joogta ama si wax iska jarsan kullu waa dhaqaale dhaama laakiin hadana lagu tala galo talabaad waxa kulay doorashadiina wadin bilaabaysaa maanta hadii la yiraahdo shirku laba cisho soconaya hadii la yiraahdo shirkan markuu loo dhamaado shirka xiga hadii la yiraahdo ay isugu marayaan maayiradu hadii la yiraahdo waxaynu ku qaban doonaa degmada Ceelaf weyn ee gobolka Sanaag ayaan ku qaban doonaa hadii la yiraahdo shirka xiga oo kulay wuxuu noqonayaa bisha 6aad waa filayay noqonayo bisha koobaad gudida bisha koobaad ayuu inoo bilaabmayaa ayuu qabsoomayaa marka shirkan waxaan qaban doonaa Ceelaf weyn maarka Ceelaf weyn si diyaar garoobo si halka maayirada ugu martigeliya hadii la yiraahdo taana intaas aan oranayaa aad iyo aadna u mahadsantiin shirkuna waa inoo furan yahay hawshana si khayr la idin jecelay ku dhamaato hadii la yiraahdo dhamaantiinba wada shaqayn fiican assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wasiirkii waxbarashada shaqooyinka halkan ka wadayay naga habsaayo soo dhaweynaya wasiir